نترحب شعب المسلمين رايحين بنترحب سابنا صيامنا ما بنلعب في كل دار فرحانين صغار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله. إلهي بانكم هذين ولا ليال وأنا نعمة داس قلبي أنك وينات هذا بلد آمن جوجو وطن كاجي آمن وياهي جركاجينا وعافمات قبو إله جل وعلا بشهر رمضان كسو قارسيي وأنا أدوكم بحضنقضا dad badan baa kala hore inala soomay laakiin maanta adduunyada ma joogaan way ka intiqaaleen. dad badan baa kala hore iyagoo caafimaad qabo ramadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxa laga yaabaa inay bukaan yihiin ay jiifaan. وأنا نعمة داسي أي قلبي إنك وينات. إلهي بالي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بإلهي يلي. ده معظم نعمة إلهينا تركوا سوقوبتان ما سوقوا بكرتان بإلهي يلي. روتينا وبالآدو خير بدن ويان ما أنتنا ومالين جمعة يدو مالمها كلبا كفل بدن هدنا مركي آد kusoo dhacdo ma aragtaana bil Ramadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadaya. Nabigeenu alayhi salaatu wasalaam xadiis wakiilaha maalmihiina inagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nabigu yiri waa maalinta Jumcada. shan khasladood bay Jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay. khaslada koobaad buu nabigu yiri abuna aadam alayhi salaam maalin Jumca ayaa nabi aadan la abuuray. maalin Jumca ayaa jannadana la geliyay. maalin Jumca ayaa jannada laga soo saaray. maalinta Jumcadii waxa ku jirta buu nabigu yiri saacatul ijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo. maalinta Jumcadana waxa uu nabigu yiri saacada qiyaamada ayaa dhici doonta. marka bishii Ramadaan iyo جمعة ونعم وين ويان إلهنا نقوم هذه ويان أبينك وجوه الرسول بشني أي بلنيسي وحول نبينا يري عليه الصلاة والسلام إعلان آية حق إلهي كإيمان آية ملك بعد واقع يورنا يا باقي الخير أقبل وركي خير كدون يو بشني وبشي خير كسوق قابل وبشي خير كويان وبشي نحريست ويان وبشي دم بداف كويان وبشي النار كحرين تويان ملك باورنا يا باغي الخير أقبل كي خير كدون يو بشني وبشي خير كسوق قابل وسوجيسو وعبادة إلهي سوق قابل وصلاة تراويح دا سوق قابل وقرآن كآخر سكيسة سوق قابل وكثرة الخير بشني وبشي خير أجر كبدن لقيه ليه سوجيسو قوليه ملك سوق قابل ويا باغي الشر أقصر
kii dambiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayo bishani bishii ilaahay la caasinaya dambiga la laaqanaya ma ahina ka joogso buulaya oo ka gaabso waa bisha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fi riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa malaa'ig albaabada naarahana waa la xidhaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaatiinna waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha keliya ilaahay jalla wacala qur-aanka uu ku sheegay magaceega shahru ramadaan waa bisha maaragtaane la yidhi waa bishii qur'aankuna uu soo degay waa bisha keliya ee nebigeennu uu yidhi habeen kasta oo bisha ramadaan ka mida buu nebigu yidhi waxa uu ilaahay leeyahay addoommo uu naarta ka xoreeyo waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho bal tiriya fadaa'ilkayga bisha ramadaan fadligay leedahay waa bisha keliya ee nebigu uu yidhi maradatu shayaatiinna waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha ay ku jirta habeenkay weynaa ee qur-aanka ilaahay uu sida gaarka ugu ammaanay ee uu yidhi innaa anzalnaahu fii laylati alqadr tobanka dambana allah ina gaadhsiiye waa bil aad u barakaysan oo xurmadeeda in la siiya ayay mudan tahay bishani الصوم جنة صومك وحو نبيك كشيء فضائل كيس كذلك إنه يهي قاشان الصوم لي وأنا أجزي به إلى حين واكلها حديث القدسي صومك أنيق أيا إسكالي أنيق أنا أدونك كعب المرين دونا وبشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام يري صائمك إنتنا أفرين وحا أوليه دعاء أقبله ومرك عداد ويسير عيسو هذا فرق ودي أرجروبي سحلك دعاء والله أقبلاء باهد هذا إله وشيء صومك وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كأجر نقونيا شهوات النفط أيو قاشان كأجر نقونيا معاصد أيو قاشان كأجر نقونيا حنونا دكتور ردو أي دوين كريوايان بي بشر رمضان أي دويسا بل دكتور ردو ورئيسته هذا بشيء بعد وش غيرتهين واحد كورونا يعني بشهر رمضان بان وش غيرنا هي نين دكتور أو مالك هلا يا يري بشي عافمات كاتمدي بشي دتكو أي بوكسنا يين باتمدي وأي باللجوء وحيري بشي عد نوتي مع ده ما بعرف نبود دتك بوكان كوي رادان بشي عافماتك وبشي إلهي تبارك وتعالى لو دواناي وبشي دنب دافك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشا نك صوم ابو نبي قوليه مالين كستو بشا كمدا نك صوم ابو نبي قوليه دنبيسي هرون والله دافيا من صام رمضان بشا رمضان نك صوم إيمانا إسقى إيمان له أو يقين له أو قرنا يا أمر كان إنه يا أمر الله حق يسكي مدي احتسابنا ومحي أجرك يا ثوابك إلهي تبارك وتعالى كدل بايو إلهي كرجينا يا إنه إلهي كأبا المريو دنبيسي هرون والله قد دافع النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لك بشهر رمضان صلاة التراويح ذا أكعب النبي عليه الصلاة والسلام سقوا إلهي كوكل صونو إيمان قبه واحتسابا أجر يا ثوابنا إلهي كدل بايو إلهي كرجينا يا أجر وكسي عبادة ذا سقنا دنبيجي هري وقد عاي ودن بالقد عفاب النبي عليه الصلاة والسلام وبشأ النبي يقول عليه الصلاة والسلام هدي متكين وأفرايو تمرها كو أفرب النبي يقول تمر هدي تمر ويانا بيها عادها كو أفرب رسولك يقول فشريعة الإسلام هو عجيب لبدانا الدواء كجرته وقو تمرتا محو النبي يقول تمرتا هو الرئيسي
waxaa la yidhi cuntada ilaahay dhulka uu ka soo saaro oo dhan mid walba fiitamiinka ku jirta ayaa timirta oo dhan ilaahay ku abuuray baa la yidhi hilibka fiitamiinka ku jira timirta waa laga helayaa caanaha fiitamiinka ku jira timirta waa laga helayaa bariiska fiitamiinka ku jira timirta waa laga helayaa wax liya waxa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtaan nicam ilaahay bin aadanka uu siiyay cunayaan mid walba gaar ahaan fiitamiinka si gaar ah iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyay baa ilaahay timirta inoo soo dhexgeliyay timirtu waa nicmada muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka oo dhan ku gaarsiiyeen asxaabu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radiyallahu anhum ajma'in markay risaalada muhammadiyada ay xambaarayeen adduunyada gaarsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaad taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolina faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yidhi oo macdada jidhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka muuminku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembi dhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaaga kor loogugu qaadaya caafimaadka ayaa kuu siyaadaya waa bishii qur'aankuu soo degay weeyaan nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa rabadaan qur'aanka ay darsi jireen qur'aanka ayay akhrin jireen qur'aanka marka innaguna waxaa laynaga doonayaa inaan bisha maalinteedana aan wakhtigeenna aan buuxinno oon cibaadada iyo salaada iyo qur'aanka iyo dikriga iyo taacadda ilaahay iyo mudaarasata alcilmi aan ku buuxinaa laynaga rabaa habeenkiina salaata leyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan wakhtigeenna ku buuxinaa laynaga doonayaa laba meeloodba shaydaankaa gala bay culimmadu yidhaahdeen wakhtiga madhanna shaydaanka ayaa dega aqalka madhanna shaydaanka ayaa dega marka qofka muslimka la dooni maayo wakhtigiisa inuu ka dhiga firaaq bal firaaqa wakhtigaaga ka ilaaliyo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaama ay tahay bishii qur-aanku uu soo degay qur-aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaamuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bisha malakul jibriil intuu u yimaada qur-aanka ay wada darsi ay jireen innaguna bisha rabadaan waxaa la doonayaa qur-aanka inaan darsino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur-aan aad akhridaa si bisha rabadaan qur-aanka mar aad u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aad akhridana waxaad khatimaysaa 3 jeer baad qur-aanka khatimaysaa haddaad 5 juz aad akhrida qur-aanka maaragtaane maalin kastana 6 maalmood baad qur-aanka ku khatumaysaa oo laga yaabaa bisha rabadaan inaad khatimto maaragtaane 6 jeer 7 jeer asmaa binu cafaan radiyallahu canhu ayaa odhan jiray haddii quluubtiinu daahir ay noqon lahaydna qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen buu odhan jiray qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen lidaalika waxaa salafu saalix culummadu ay sheegaan saxaabada maahayna dadkii ka dambeeyey xataa taabiciintii taabicu taabiciin ilaa yowmina haadaa dad waxaa la helayaa qur-aanka maalintii mar khatimaaya qaarkoodna 2 jeer bay maalintii qur-aanka khatimaan oo waa la helaa imaam ashaafici raximahullah ayaa laga sheegay inuu bisha rabadaan 60 jeer qur-aanka uu khatimayay 60 jeer innaguna maanta maxaan ka sheekaynaynaa muslimiinta maanta weliba bishan rabadaan iyo maalmahan sheekada inagu badan waxa weeyaan xanuunkaa yar ee adduunka lagu sheegay maanta ee dadka oo dhan ka cabaadsiiyey ka qaylisiiyey labadii isku timaadaba xanuunkaa bay ka sheekaynaysaa maanta yaa layt sida xanuunka aan u hadalhayno haddaan ilaahay u hadalhayn lahayn oo qur-aanka u akhrisan lahayn oon istikfaarta u badin lahayn oo ilaahay dikrigiisa u badin lahayn lakaana khayran khayr baan ku sugnaan lahayn man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoonka aniga keligii xasuusta baa ilaahay leeyahay keligay baan xasuusan addoonka jamc igu dhex xasuustana jamca uu igu dhex xasuustay jamc ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi
نتذاكر انت وحكى هذا الهيسد مخلوق انت هذا الهيسد ان هذا الهيس كلكم من اوقوفي عن ان اله الا مناجوتي صالحين waxay ahaayeen markay dadka la hadlayaan way dibsanayeen markay kaligood meel ay fadhiistaana waxay dareemayeen inay wehel ay haystaan waayo kaligood markay fadhiyaan waxay la munaajoonayaan waa ilaahay quraankiisa akhrisanayaan quraanku waa kalaamka ilaahay waa mawcidada ilaahay oo caalamka u jeediyay hadaa doonto adigu inaad ilaahay alla hadashid nabaa la yiri salaada tukog oo qofka tukanaya ilaahay buu la munaajoonaya hadaa doonto ilaahay inuu adiga kula hadlana quraankiisa kala furo quraanka ilaahay akhriso saxaabada radiyallahu anhum iskada masaajidka dhexdeedii meelaha majaalista ay leeyihiin markay fadhiyaan waxay maaragtaanay ay dhageysanayeen mar walba inay ilaahay isxasuusiyaan oo aakhirada isxasuusiyaan oo saacada qiyaamada isxasuusiyaan fi sunan waxaa nabigeenu sheegay wuxuu sheegay imaam muslim rahimahullah rasuulkeena alayhi salatu wassalaam ayaa saxaabadiisa qaar kamid oo meel fadhiya ayuu nabigu u yimiday markaa buu nabigu ku yiri maxaad hadal haysan bali sheega markaasay yiraahdeen saacada qiyaamada ayaan hadal haynaa waa zamankee waa 1400 oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacada qiyaamada soo socota goormay dhici doontaa anaka uga xaq leh inaan maanta hadal haynaa saacada qiyaamada markaa buu nabigu ku yiri innaha lan taquma saa'atu hatta taraw qablaha 10 ayat saacada qiyaamadu ma dhacaysa buu nabigu imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nabigu alayhi salatu wassalaam 10 ka calaamadood waa calaamatul kubra ayaa la yiraahdaa laakiin waxa jira ashraatu saa'a wax la yiraahdo calaamaatu sughra iyagu waa la arkay maanta hadii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helaya calaamaatu sughra laakiin nabigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacada qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nabigu inuu yiri alayhi salatu wassalaam فذكر الدخان والدجال ودابة ونزول عيسى ابن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك النار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يري عليه الصلاة والسلام وعو رسول كأنه يري ساعة قيامة مدعي دونتو إلى الله أركته من علامات مرقاب نبي شاقيق سمد كيمن يبو نبي شاقي كما في نص القرآن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وعو نبي شاقيق سمد كيمن يبو نبي شاقي وعاكلو نبي شاقي دجال بو نبي شاقي عليه الصلاة والسلام وأدوية بقعد كمتالو إلا دجال أمريا dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigi isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharru ghaibin yuntadar ayu nabigu yiri fadajjal fa sharru ghaibin yuntadar aw as-sa'a wa sa'atu adha wa amr dajjal buu nabigu sheegay inuu imanaya aakhir zamaanka anta zamankan maanta ka warrama صحابة رسولك رضوان الله عليهم أجمعين أحاديث الدجال كصابسا مرقو نبيكو وقور رمايو وحايدادين وحان موذي جرني سدا وهذا النبيكو قلوب تادا أساميني درتنا قدام بيسينو الدجال كجرانو ملينين أصحابتو دادين وأكوني أفر بغلو سنة كهرويان وحاس ونبيكو كور رمايو إنك أنا ما أنت زمك أنا كور رما كورونا فيروس ما مات عالم كنا وريريو لهذا الحياة حنون أمر إلهي كالصعدة وجند من جنود الله وقفك إلهي وقلت لك لما أنا قفك الآن كل عين أي عالم كودا لابد يسكت ما دمانتها كشا كيسانيسا صحابتنا كوني أفر بغولو سنة كهر وحي كشا كيسانين دجال إنو صوص صعدو ماركو النبي قد دجال وغشا كينا ينبيد هذين وحنون ملينيني يقين تخبر كالنبي قاي وقبان درتنا قدام بيس الدجال إنه كجرانو ملينين أصحابته إلادين دجال بو نبي وشاقين وأدون كوردان مرايو جنة النار وحويك بوتا وعو نبي قوليه عليه الصلاة والسلام قفل يقفك السقر الرمية الراعنا
waxaa jannada u wato ayuu ku tuurayaa dad alliya dadkii isaga inkira yidhaahda rabbi ma tihide kaafir dajaal ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratulkahf ninka akhrista maalintii ilaahay fitnada dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin 10 ka dambana nebigu waa sheegay waxaa kaloo nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu adduunka oo dhan uu saameyn oo uu galayaa Makka iyo Madiina ma galaya buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin xadiistu waxay sheegaysaa 4 meelood dajaal ma galayo jabal tuur buurtii nabi Muuse calayhi salaam loogu waxyooday ee ilaahay nabi Muuse uu kula munaajooday ma galaya dajaal Makkana ma galayo Madiinana ma galayo Qudusna ma galayo buu rasuulku yidhi Masjid al-Aqsana dajaal ma galayo laakiin shiriiriin dadka sharka badan leh munaafiqiinta ee Makka iyo Madiina dhexdeeda ku dhuumanaya ku nool ayaa dajaal banaanka ugu baxaya buu rasuulku yidhi calaamada saddexaad buu nabigu yidhi waa daabad dhulka ka soo baxaysa buurta Safa la yidhaahdo inna Safa wal Marwa sakhradaa bay ka soo baxaysaa iyaduna adduunyada oo dhan bay maraysaa qof kastoo adduunyada ku yaalabay uu nabigu yidhi waa ishaabadayn waxa qof walba uu yahayna waa ku qormi doontaa buu rasuulku yidhi muuminka muumin bay ku shaabadayn kaafirkana kaafir bay ku shaabadayn waxaa kaloo nabigu sheegay inuu imanayo nabi ciise calayhi salaam yanzil calaykum ibnu maryam xakaman cadalan fayaksir as-saliib wayaqtul al-khinziir wayadacu al-jizyata nabi ciise calayhi salaam ayaa dushiina ku soo degi doona buu rasuulku yidhi xakaman isagoo xaakima shariicada islaamku adduunyada ku xakumi doona وعدالة فلدونا ظلمك ما أنت أقل والبا يا مجتمع والبا ساميي وكرفع دونا صليبك قالوا أيدادان نبي عيسى لقو حلول لقو دلدلين وجبين دونا عدالة الإسلام قد بيدونا كو حكومي دونا أبو رسولكو يلي وعاكلوا نبي قشيك يا جوج وما جوج يكن الله فوري دونا أبو رسولكو يلي والله بقى أمدودو كو أبتر صدا يافث بن النوح بي كو أبتر سنة يا أمدي بوافر بغلوكن mid iyaka kamida madhinta baa la yiri ilaa uu arko kun wiilo isagu uu dhalay oo qaan gaaro dagaalka galay mooyaane ummadana adduunyada waa lagu soo furi doonaa hatta idha futihat yajuuj wa maajuuj wa hum min kulli hadabin yansilun waa ka quraanka ilaahay noogu sheegay waxa kaloo nabigu sheegay ash-shamsu buu nabigu calaamada lixaad waxa kamida cadceeda oo ka soo noqota meesha ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaarin hadduu toobadkeena buu nabigu yidhi toobada ilaahay jalla wa ala waa ka aqbalaa laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jirka oo dhan ee halka hunguriga dhuunta iskugu timaado hadduu yiraahdo qofku markaasan ilaahay u soo noqonaya toobada laga aqbali maayo nacam hadday ciidadu galbeed ka soo noqotana albaabka toobada waa xidhmay buu rasuulku yidhi saddex meelood adduunyada ku taalana buu nabigu yidhi dhulka ayaa gu'i doona خصف في المشرق دولك اعداد اي كسو بخدو ودنا دن يا امده دن با لا واي دونا علامه تضباده واتاس علامه سيديداد بو نبي غد خصف في المغرب قلبيتك ادويدنا ودنا دن يا امده دن با دولك لا غوي دونا علامه سغالاد بو نبي غد خصف في جزيره العرب دحديدنا دول يا امده دن با لا واي دونا علامه توبناد بو نبي غد ولا ليال وان نار كسو بخايسا عدن مغالده عدن gunteeday ka soo bixi doonta banka qiyaamada ku soo urin doonta buu rasuulku yiri tobanka calaamadood ba ka soo reebay nabigu saacada qiyaamada tobanka calaamadood maanta wax ka sheekeynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekeynayaan xanuun gaajay ka sheekeynayaan abaar bay ka sheekeynayaan waxa samaanta adduunyada dadka la weyn maanta deeshani marka waa bil barakaysan yaanan hadalka adduunyada isku badin man lam yadac qawla az-zuri wal amal bihi falaysa lillahi haajatun fi an yadac ta'amahu wa sharabahu ma waxa laga soomaya baadiye biyo kaliye waxa la doonayaa in arabkaagu laqwiga ka soomo dhagtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaaraanta inay ka soonto waqtigaaguna meelaha xun uu ku baxayo inuu ka soomaa loo baahan yahay
مخلوق شيكديس هذا الغاد كيس كسون هداد شيكين قرآن كأخرسو هداد دادو شيكين ساعة قيامة كورن هداد دادو شيكين دادك إلهي وغا شيكي هداد دادو شيكين دادك آخرة أسو جيدي هداد دادك وحو شيكي إلهي حقي سومد وقوية وحا مانتا الدوية لغا شيكيني ووحبك مجران فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون با إلهي ليهي حصوصتا عنيقا أنا إني حصوصنا إيه إما هنقا با إلهي ليهي هايقا قالوا بيني با إلهي ليهي بركان بشاني وابل آذو بركة يسندتك مسلمين تاوحا الدنيا فرصة داينا كفا إيدي سنو وابل دعاء إلهي أقبلايو بلايو إنكا يا مصيبو إنكا الله شيغا يانا dadka inay dalkeena dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta Allah ka ilaaliyo aamin dhahada dadka dhibta soo gaadhana Allah ka qaado dadka ku dhintayna Allah u naxariisto dadka u hayana Allah caafimaad sariic Allah siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba bi rasuulku ilaahay baryabu nabigu leeyahay oo baahidiina ilaahay u sheegta inagoo yaqiinsan oo ku kalsoon ilaahay inuu ducadiina aqbalayo استقبلوا بأمواج البلاء بالدعاء وحسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة طب النبوي إمام قيم ابن قيم رحمه الله حديث كايوك الشيقي بلايوينك الضبيله أي وضان بنبي قليهي دعاكو قابل دعاء ذوي وعيسى بلايدا حوله إننا وحدكو إلى الإسلام بنبي قليهي الزكاة haddaad zakada dhiibtidoo dadka mustaxiqiinta loogu talagalay aad xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay ka dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nabigu leeyahay sadaqada ku daweeya wuxuu leeyahay hay'adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo loo hayn baa adduunka soo galay nabi maxamedna waxa uu leeyahay kiina inaga bukooda sadaqada ku daweeya warkayna galay markaa warkeena galay maanta hay'adda caafimaadka adduunku waxayna tidhi xanuunaan dawo loo hayn baa jira kala dheeraada nabi maxamed waxa uu leeyahay xabbatu sawdaa dawaa'un min kulli daa xabasuuda buu nabigu yidhi xanuun kastoo adduunyada ka jira ayadaa u dawaa buu nabigu leeyahay ilaa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilmi tajaarub waa cilmiga tajrubad تجاربك علمك النبي محمد وكوها ينا وعلم الوحي ويان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال ذو وحينا لا حنون عند ولا وحين بعد يدك قاعد اسكيل عليا إلى حين قرآنك وحو كل يحي فيه شفاء للناس وعسلك ملبك دواء إلى هاي قلي خبرك دتك أي شيء يان مؤمنك إنه قلم معها خبرك إلهي خبرك النبي يقول شيئا قلبك هكو قلم نباتك كستو الدنيا الله قول شيئا حالك إلهي رسولك إنك نو شيئا لكن دتك وركا وقلي الله ينقدم الله ينقدم لسان وبالبركة يسن مركا عنده عيسن إن شاء الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبب النزول كعادة يكسوا تكتم هاي إن أعرابي ورير بادية أي النبي نويمد عليه الصلاة والسلام وحول يا رسول الله إله حقي سعد نوغو يريسا ما من نقر ديرو مركان بريا ما نقيلنا بسوا من نودو والله مراجونا يهوصنا ونحقو شاقنا بالنوشك وآمس النبي عليه الصلاة والسلام لأن مركز آيات القرآن كسودك إلهي وليهي هذي أنا قاعد ضم هاي كاوي ديان وعادو الشيخ تاين أنا نقول أضم كانوا دوحي كإبريانا بريدي سواء أجيبي بإلهي يعني قال لكن هاي أجيبان لا بشرط ما لقوا حين دعاء إن لقى أقبل إمسى شرطي لا بشرط فليستجيبوا لي إلهي أجيب وأمرك إلهي إلهي وشريعة إلهي ودينة إلهي وطاعة إلهي ووحي معروف إلهي كفر لك علي وحي منكر شريعته هاي كان ريبتنا كان ريبتهم
وليؤمنوا بإلهين الرمي قضاء والقدر وحي إلهي كو حكمين كرا لنغو وحي إلهي كو قدرين كو قنع لابد هدي قلبي جنا اعتماده waxaa adduunyada la sheegay oo dhan ayna saameyn maayaan waxaa adduunyada maanta ka jira quraanka si fiican u dhageyso wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat maxaa ku xiga wa bashir as-sabirin daawada xanuunada adduunyada ka jira oo dhan waa sabir weeyaan miftaaxul faraj waa sabir weeyaan adoonku mukhayyar maahina waa musayyar adoonku wax ma dooran kara isagu وحي لهاي كو قدر adiga waa inaad ku qanacdaa lidaalika nabigeenu kaleey salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay malaa'iktu markay ilmaha yaray nafta ka qabtaan ayuu ilaahay malaa'ikta ku yiraahdaa adoonkaygi ilmihiisi ruuxda ma ka soo qaabateen haa bay yiraahdaan adoonkaygi midhii qalbigiisa ma soo qaabateen haa waan soo qabanay markaasuu ilaahay yiraahdaa famaadha qala abdi adoonkaygi markaad ilmihiisi ruuxda ka soo qabateen muxuu yiri bali sheega markaasay yiraahdaan xamidaka wastarja'a xamida ma macna alxamdulillahi ala kulli xaal buu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun buu yiri markaasuu ilaahay yiraahdaa maadaama adoonkaygi markii ilmihiisa nafta aad ka soo qabateen oo aniga ii mahadnaqay oo isaguna xaqayga u soo noqday ibnu li'abdi baytan fil janna aqal jannada uga dhisa aqalkaana waxaad ugu magac dartaan gurigii mahadnaqa مؤمنكم برواقدنا وكم عاشا مصيبة عندك دعدنا وكم عاشا وقفك مؤمنك لكن فإلهي تبارك وتعالى إيمانك هاي نوعتك يا أمين هذا بشهر رمضان الله ينقى أقبله